بسم الله الرحمن الرحيم. waad mahadsantihiin. waxaa la ogsoon yahay isbedelka wadanka guud ahaan ka socda oo isbedelkan oo ah mid dhammaan shucuubta Itoobiya ka faa'iideysiga horumarinta ka qaybgalka maamulka suuban iyo ilaalinta xuquuqda insaanka iyo dimuqraadiyadda waa mid lagu xaqiijinayo taasina ay abuurtay midnimo ballaaran dalkeena oo dhan. isbedelkaas waxaa tababar socday in badan shacabka deegaanka Soomaalidana cabashooyin kala duwan ay ka jireen, dhibaatooyinka xadgudub xuquuqul insaanka, xadgudub xagga sharci darrada ah, dhibaatooyin maamul xumo ballaaran oo shacabku ka cabanayeen. iyadoo taas la raacayo waxay dowladda dhexe isku dayday in wada hadal kala duwan lala sameeyo hogaaminta deegaanka iyo shacabka deegaankaba. waxaa la ogsoon yahay ra-iisul wasaarahana Dr. Abiy Ahmed socdaalkiisa ugu horeeyay wuxuu ahaa socdaalka uu deegaankeena Soomaaliyeed uu ku yimid oo magaalada Jigjiga odayaasha Soomaalida oo dhan ay u dhan yihiin uu kala hadlay, taasoo u muujiyay inuu deegaanka shacabka wax la qabanayo ka faa'iideysiga horumarinta ka qaybgalka kala duwan ee horumarineed iyo maamulka suuban iyo si dhibaatooyin ka jira deegaanka loo xalin lahaa iyo dimuqraadiyadda iyo in xuquuqul insaanka la ilaaliyo iyo dhibaatooyin kala duwan in la xaliyo iyo ballan qaaday ahayd. iyadoo taa la raacayo wada hadallo kala duwan iyo hogaaminta deegaanka siyaabo kala duwan lala sameeyay, iyadoo wada hadalladaas ay jiraan wada hadalladaasna in dhibaatooyinka deegaanka lagu xaliyo oo deegaanka isbedel inuu ka yimaado, isbedelka dalku ka dhacay inuu deegaanka ka hirgalo weeye. taas iyadoo laga duulayo iyo codsiga shacabka odayaasha kala duwan iyadoo laga duulayo, dhibaatooyinka shacabka haysta iyadoo laga duulayo, ra-iisul wasaaruhu wuxuu kala hadlay marar kala duwan hogaaminta deegaanka si isbedel ka wadanka oo dhan ka dhacay deegaanka Soomaalidana uga hirgalo, sidaasna ummadda Soomaaliyeed nabadgelyo waara, horumarin waara iyo dimuqraadiyad iyo in la ilaaliyo xuquuqul insaanka shacabka mid lagu dhiirigelinay bay ahayd. iyadoo taas ay socoto hogaaminta deegaanka oo in yaroo kooxa waxay ku tallaabsatay in dhibaatooyin ballaaran uu deegaanku ka dhaco. magaalada Jigjiga iyo magaalooyinka kale ee deegaanka Soomaaliyeed carqalad ballaaran baa ka dhacday, taasoo dhimasho badanna geysatay, hanti badanna shucuubta kala duwan ee Itoobiya iyo Soomaaliba lagu boobay, taasna ammaan darro ballaaran deegaankeena keentay. waxaa kaloo dhacday in xoogga booliiska gaarka deegaankeena lagu soo aruuriyo agagaarka Jigjiga iyo meelo kala duwan ee deegaanka ah, taasoo jidgooye iyo arrimo qaarkood lagu sameeyey, taasna amniga qaranka oo dhan khatar gelisay. marka dhibaatooyinka magaalooyinka Jigjiga ka dhacay iyo meelo kale waxaa aada u foolxun boobka iyo dilka iyo heedaha iyo dhismooyinka diinta ah ayaa meelo badan qaarkood lagu gubay. taasna mid matalayso shacabka Soomaalida ma aha. ciddii dhibaatadaas ka dambeysay ama ku sifoogday dowladda federaalka waxaa la sameeyay koox baaritaan degdega sameeya dhibaatooyinka deegaanka ka dhacday iyo baaritaan degdeg waa la sameyn doonaa, sidaasna sareynta sharciga sidii loo ilaalin lahaa ayaa loo tallaabsan doonaa. marka maadaama dhibaatooyinkaas ay sii ballaadheen, hogaaminta deegaankuna oo kontroolka amniga deegaanka ay kari waayeen, waxay codsi sameeyeen dowladda federaalka in amniga deegaanka uu gacanta ku caawiyo oo xaaladda uu dejiyo, dilka iyo boobka barakaca dhibaatooyinka kala duwan deegaanka ka jira sidii loo joojin lahaa, fowdadan ballaaran ee ka abuurantay sidii loo joojin lahaa. waa mid codsi heedaha federaalku ay codsadeen. marka iyadoo ammaanka shacabka in la sugo, iyadoo codsiga shacabka la raacayo, iyadoo codsiga xukuumadda deegaanka inay dhibaatooyinkan ballaaran ee dhacday ee khalkhal geliskay dhammaan deegaanka iyo deegaanada deriska iyo dhammaan saameynna ku yeelatay dhinaca deegaanka Soomaalida iyo meelaha u dhow dhan. waxaa marka codsigaas deegaanka Soomaalida xukuumadda deegaanka Soomaalida la raacayo iyo dowladda dhexe waxay go'aamisay in wasaaradda difaaca iyo booliiska federaalka ah iyo hay'adaha amniga kale ee dowladda federaalka ay deegaanka ay
xasilooni iyo deganaansho ka abuuraan boobka iyo dilka iyo dhibaatooyinka badan shacabka loo geysanayo in la joojiyo inay ka howlgalaan ayaa maanta amar lagu siiyey madaxweynaha wasaaradda difaaca wasaaradda booliska iyo hay'adaha kale amniga dalka waxay saacadan laga bilaabo ka howlgali doonaan dhammaan Jigjiga iyo deegaankeena oo dhan marka waxa dhammaan shacabka Soomaaliyeed odayaasha la farayaa inay garab istaagaan ciidamada iyo hay'adaha amniga federaalka sida loo dejiyo loo xasilooni lagu soo dejiyo deegaanka Soomaalida waxa kaloo la farayaa dhammaan ciidamada gaarka liyu booliska ciidamada gaarka liyu booliska dadaalo badan ay sameeyeen nabadgelyo badan bay ka soo qayb qaateen iyo faa'iido badan ay ummadda Soomaaliyeed u sameeyeen waa wiilal ummadda Soomaaliyeed waxa la farayaa in ayagoo la shaqeynaya ciidamada federaalka iyo ciidamada booliska federaalka inay si wada jir ay u shaqeeyaan dhibaatooyinkan fowdada deegaanka ka socda inay marnaba xubinkooda kamid ah uusan ka qayb qaadanin ciidankan gaarkana waa mid kamid ahaan doona isbedelka deegaanka oo nabadgelyo inuu ka qayb qaato loo baahan yahay marka xubnaha ciidamada gaarka waxa la farayaa in saacada laga bilaabo si buuxda oo la shaqeeyaan ciidamada federaalka iyo ciidamada booliska dalka si xasilooni iyo deganaansho deegaanka Soomaaliyeed oo lagu abuuro taas oo lagu joojinayo dilka iyo boobka iyo dhibaatooyinka fowdada ee dhammaan magaalooyinka iyo meelo kale ka dilaacay taas oo ummadda Soomaaliyeed iyo shucuubta Itoobiya oo dhan dhaawac weyn u geeyay marka dhibaatooyinka gaarka ah hay'adaha diinta lagu sameeyay ma aha mid matalaya ummadda Soomaaliyeed marka cidii kooxdaas ama dhalinyaraha ahaato ama cid kale oo amniga ka tirsan ahaato ama cid kale oo hogaamin ka tirsan ahaato waxay noqon doontaa mid baaritaan degdeg ah la sameyn doono guddi isku dhaf oo hay'adaha federaalka ee amniga iyo cadaaladda ayaa loo diri doona deegaanka sidii baaritaan degdeg u sameyn lahaayeen cidii arimahaas ka dambeysay dhanna marka mid sareynta sharciga iyo horgeynta sharciga la sameyn doono ayaa noqon doonta marka shacabka Soomaaliyeed waxa loo baaqayaa inay hay'adaha amniga federaalka si buuxda oo la shaqeeyaan qaab dhismeedka amniga deegaankana waxa la farayaa inay si buuxda oo la shaqeeyaan hay'adaha federaalka sidaasna xasilooni iyo deganaan degdeg ah lagu abuuro reformka ama isbedelka qaab dhismeedka deegaanka iyo dib u dhiska maamulka iyo dib u dhiska siyaasadeed oo dhan mid wada tashi ummadda shacabka iyo xisbiga baarlamaanka iyo qaab dhismeedka kale ummadda Soomaaliyeed ee leedahay iskaashi wada jir dawladda federaalka mid lagu sameynayo dib u habeen lagu sameeyo noqon doonta waxaan leeyahay ka faa'iideysi ballaaran oo reformka wadankan ka hirgalay ummadda Soomaaliyeedna waa laga hirgelinayaa marka annagoo deegaankeena intaan xasileysano reformka wadanka laga hirgalay si buuxda ummadda Soomaaliyeed inay ka qayb qaataan loo baahan yahay waxa kaloo loo baahan yahay ummadda Soomaaliyeed shucuubta kale Itoobiya waxaan nahay ummad walaalo wada jir waligeena si walaaltinimo aan ugu nooleen marka taasna isla noolaanshaha walaalaheen shacabka kale waa mid in la sii xoojiyo ayaa loo baahan yahay tan kale darisnimada wanaagsan iyo walaaltinimada deegaanada dariska dhammaan deegaanka Oromiya iyo deegaanka Cafarta iyo dhammaan xadkana maadaama ummadeena in badan degan yahay marka deganaanshaha iyo xasiloonida oo dhan waa in gudaha dariska iyo dawladaha dariska aan nahay walaaltinimadeena nabadgelyada in si buuxda loo ilaaliyo loo baahan yahay marka arimaha kale soo kordhona waa mid aan shaacin doono